qaar ka mid ah qurbajooga ka soo jeeda gobolka Gabil ayaa deeq mooto ah ama gaari curyaana soo gaarsiiyay Agwaan Cabdi Jibaar Sheekh Ibrahim Sultan oo ka mid ah awaaninta reer Somaliland isla markaasina ah nin curyaan ah deeqdani oo lagu soo hagaajiyay Cabdikariin Maxamed Cadde ayaa si rasmi ah sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa maayirka magaalada Gabiley Shacay Maxamed Muuse deeqdan qurbajoogan oo aan magacyadooda sheegin ayaa si gaar ah ugu soo diray curyaankan oo in badan boo cadilna gaari mooto maayirka magaalada Gabiley Shacay Maxamed Muuse ayaa soo dhaweeyay isla markaasina qurbajooga ku amaanay doorka ay kaga jiraan horumarka dalka Cabdi Jibaar oo ah nin muwaadin ah reer Somaliland reer Gabiley oo adarkiisa in maaragtay uu naafay runtii oo aan gurigiisa joogno iyadoo maanta guddoonsiin doono lagu wareejinayo gaari mooto ah oo casri ah oo kaga filaan doona in fara badan baahiyaadkiisii ahaa inuu shaqadiisa aado ama waqtigiisa ka faa'iideysto oo maaragtay Cabdikariin waxaan u jeedaa Cabdi Jibaar waa nin shaqaysta oo muruqmaal ah oo xamaasha oo isagoo naafaha hadana ubadkiisa iyo reerkiisa oo xamaasho u dadaala oo dhibaato fara badan ka haysatay kolba wadada isagoo fadhiya adeerkiisa aan dhowr jeer qaaday oo kolba gaari joojinayay kolba maaragtay ilaahay cidba ma ayuu soo diraa waxaan u mahad celinayaa oo maanta halkan isla jooga oo dadaalay runtii oo muddo kara ah wariye Cabdikariin sidoo kale Cabdikariin Maxamed Cadde ayaa isna si rasmi ah ugu wareejiyay mootooryaankaasi agwaankaasi sida rasmiga maanta loo soo gaarsiiyay sidoo kalena agwaankaasi aad uga mahadnaqay qurbajoogta reer Somaliland gaar ahaan reer Gabiley doorka ballaaran ay ka geysteen gaarigiisaasi waa Nimcaan Dheeg Ibraahim TV qaranka Gabiley.